kulanti wanaagsan khiyaarta nala socota fiid wanaagsan ayaan idin leeyahay waa 16 bisha January sanadka 2026 waa tabin kamid ah barnaamijka Barrow Show qodobo dhinacyo kala duwan taabanaya ayaan idin hayaa dawladaha Saudi Arabia Turkiga iyo Pakistan ayaa dhisaya isbahaysi ballaaran oo muddo hal sano ah la qarinayay hanaanka wada hadalka iyo waliba qaabka loo farsamayn doono dawladahan ayaa marka la fiiriyo qaabka ay u dhismayaan isbahaysigoodu waxa uu noqon doonaa mid military dawladda Saudi Arabia waxay bixin doontaa dhammaan qarashaadka isbahaysigan lagu wadi doono Turkiga waxa uu bixin doonaa farsamada halka Pakistan ay ciidamadu keeni doonaan ujeedadu waxay tahay in la dhiso quwad ballaaran oo wadamada muslimiinta ah oo gobolka bariga dhexe yimaada si looga hortago loolanka Israa'iil ee wadamadaasi ku samayn doonaan haddaba sidee dawladaha NATO ku jira iyo waliba quwadaha waaweyn ee adduunka ay u fasirayaan samaysanka quwad weyn oo muslimiina oo gobolka bariga dhexe timaada arrintan oo si gaar ah ay u qorayaan qaar kamid ah warbaahinta waaweyn ee adduunka isla markaana soo shaac baxday wasiirka difaaca Pakistan uu ku dhawaaqay ayaan idinku la wadaagi doonaa barnaamijkan inta waxa raaci doona dawladda ama nidaamka la yiraahdo Israa'iil waxa ay ku qancinayaan Mareykanku ama ay u soo jeediyeen in hoos loo dhigo tallaabo military oo lagu degdego oo laga qaado dawladda Iran Ayatollah Ali Khamenei waxa la yiraahdaa haddii dagaal dhammaystiran lala galo waxay ka dhigan tahay dawladahana inay dhiig bixi doonaan dagaalada ay galaanna ay ku raagi doonaan isla markaana ahdaaf badan iyo yoolal ay lahaayeen ay meesha ka bixi doonaan dawladda Ruushka ayaa qaadanaysa tallaabo dhexdhexaad oo cajiib ah taas oo si weyn u soo jeedatay dawlado fara badan Khamenei oo birta madaxa ay ka saarnayd hadda waxa uu muuqanayaa fursad uu ku neefsaday inuu helayo sidee wax isu bedelayaan barnaamijka ayaan kugu la wadaagayaa isla wararka Iran waxaan kugu sheegi doonaa wiilkii uu dhalay boqor Shaahi talada laga tuuray 50 sano ka hor markii kacaanka islaamiga uu gacanta ku dhigay talada wadanka Iran ayaa Washington isagoo jooga wariyaasha hor yimid waxa uu leeyahay wadankii ayaan ku laabanayaa kacaanku waa dhacaya laakiin waxaan qaadan doonaa laba tallaabo oo caalamka islaamka laga jeclaysan doonin maxay yihiin barnaamijka ayaan sidoo kale kuugu hayaa khiyaarta inala socota ay qodobadaas iyo warar kale oo xiiso leh oo dhinacyo kala duwan taabanaya ayaan barnaamijka idinkugu falanqeynaya Cabdulcasiis Barrow ayaan ahay barnaamijka daawanaysan waa Barrow Show ha ilmaamina inaad YouTube-ka subscribe saartaan oo share gareysaan muuqaalkan saaxiibadiina la wadaagtaan aad baad u mahadsantihiin soo dhaafay warar xiiso leh oo dad fara badan ay u riyaaqeen marka la fiiriyo gobolka bariga dhexe ayaa soo galay warbaahinta taas oo ku saabsan isbahaysi dagaal oo cajiib ah oo ay dhisi doonaan amaba ay dhiseen aan ilaahay haddii aan si kale u dhigo dawladaha Pakistan Turkiga iyo dawladda Saudi Arabia wargeyska la yiraahdo Ra'yul Yawm oo arrintan si gaar ah u falanqeynaya waxa uu leeyahay tani waxay ka dhigan tahay in gobolka bariga dhexe lagu kala adkaanayo haddii saddexdan quwadood oo saameynta leh ay yimaadaan dawladahan ayaa marka la fiiriyo taxliilka ay samaysay majalada la yiraahdo Global Firepower oo ka faallota arrimaha militariga iyo waliba sida dawladaha ay u kala awood badan yihiin iyagoo ka qiimeynaya dhowr dhinac ciidamada wadamadaasi waxay tilmaamayaan in saddexdan dawladood ay yihiin haddii ay isku tagaan quwadooda kuwa bariga dhexe saameyn xoog la ku yeelan doona sida ay ku waramayaan qaar kamid ah dadka falanqeeyaasha ah waxa ay tilmaamayaan in dhaqaalaha ugu badan isbahaysigan lagu socodsiin doono uu ka iman karo dawladda Saudi Arabia halka dawladda Pakistan ay ciidamada keeni doonto halka farsamada iyo tiknoolajiyadana ay la shartigi doonto wadanka Turkiga sidoo kale dawladda Turkiga ayaa ka difaaci doonto golayaasha NATO isbahaysigan haddaba isbahaysigan ujeedadiisu maxay tahay saddexdan wadan ayaa muddo sanada shir u socday waxa laga hadlayay sida looga hortagi karayo daandaansiga Israa'iil ee wadamada dhowr jeer ay gudbiyeen Israa'iiliyiintu sida ogtihiin oo ay ku tilmaameen in ay doonayaan Israa'iisha weyn ee gobolka bariga dhexe timaada si marka taasi looga hortago oo aanay u saameyn Turkiga Pakistan iyo waliba Saudi Arabia dawladaha ay suuragalka tahay inay taagtoodu yar tahay ee la geli karana looga hortago waxa la istusay intay goor tahay in isbahaysi la sameeyo sidoo kale waxa soo baxay markii qadar la weeraray in dawladahan ay u muuqatay in la isku haleyn karin awoodda Mareykanka iyo waliba difaacyada heshiisyada ay la galeen
ay ku badbaadi karayaan. sidaa daraaddeed nin kastoo madaxaada mayrax ku duubo ayaa ujeedka lagu macneeyey. wasiirka wax soo saarka ama wasaaradda difaaca Pakistan ninka la yiraahdo Raza Hayat Hiraj ayaa waxa uu si weyn u faahfaahiyey heshiiskan inuu noqon doono mid aad muhiim u ah. waxaa ka mid ah haddii saddexdan dowladood mid ka mida la weeraro in si isku mid ah dowladahan ay dagaalka u geli doonaan oo aan meel cidlaa la fariisan doonin, taas oo aysan ku dhicin baa layidhi Israa'iil inay si degdeg ah wax badan u samayso. saddex qodob oo muhiim ah ayaa heshiiskan uu noqon doonaa. kow wuxuu noqon doonaa iskaashi difaac oo ballaaran, in la isku garabsado mid ka mid ah haddii dal ka mid ah saddexdan dal la soo weeraro in kor loo qaado iskaashiga ciidan iyo farsamo oo ay dowladahan leeyihiin. mas-uuliyiin badan ayaa arrintan ku xiraya xiisada cusub ee gobolka ka taagan. saddex dhinac bay markaa eegi doonaan. waxaa leeyahay kor u kaca hanjabaadaha ka imaanaya Israa'iil si gaarana ugu socda Iiraan oo aydii ugu dambeysay dibadbaxyo ay ka taagnaayeen xiisadooda ay bariga dhexe ahayd. Turkiga oo ah wadanka hadda hogaaminaya quwadda ama ugu awoodda badan gobolka bariga dhexe iyadoo nambarka labaadna uu noqon doono Israa'iil iyo dowladda Sacuudi Arabiya oo loo arko bu'da ay isugu imaadaan ilbaxnimada islaamka iyo dowladaha caalamka islaamka inay si gaar ah u eegayaan. waxaa la yidhi galajabkii ku dhacay xiriirkii u dhexeeya Sacuudiga iyo Imaaraadku waxa uu noqday bar kale oo u muujinaysa gobolka bariga dhexe inuu sii daciifayo weliba haymanadii ama hogaamintii dowladda Sacuudi Arabiya ay ku lahayd gobolkaasi. damaca reer galbeedka ee dib u habeynta juqraafi siyaasadeed ee bariga dhexena waxa uu dowladahan tusay khatar weyn inay ku soo socoto. sidaa daraaddeed waxa ay bilaabayaan in ay ka hortagaan guud ahaanba arrimahaasi gilgili lahaa iyagoo meel iska fadhiya haddii ay timaado. NATO oo si weyn looga baqayo Turkiga ayaa ah wadanka labaad ee ugu ciidamada badan isla markaana marka Mareykanka laga soo tago ugu awoodda badan ee NATO ka tirsan. halkaana waxay ka helayaan baa leeyahay iskaashi weyn. arrintan waxay saameyn ku yeelanaysaa Tel Aviv ama Israa'iil sida khubarada qaar ay arrintan u dhigayaan. waxaa leeyahay Sacuudiga waxa uu bixin doonaa dhaqaalaha halkaasi ku imanaya marka isbahaysigan inuu socdo aad ay u ballaaran tahay. dowlado fara badan ayaa indhaha ku haya Israa'iilna waxay muujinaysaa inay arrintan walaac ka muujinayaan. si weyn waxa uu falanqeynaya wargeysyada ama telefishinada ka soo baxa Israa'iil si gaara channelka 14aad oo la yiraahdo siyaasad ahaan Netanyahu ayuu ku dhow yahay ayaa arrintan u arkaya in dhaba kale ay u jeexi doonto gobolka bariga dhexe. xulashada dalalka qaliijka isbahaysigan yaa ku beeri kara ayaa durbaba la sii odrosaya. wargeyska Raayul Yawm waxa uu leeyahay Kuwait iyo Oman waxaa la yiri waxaa laga yaabaa inay si degdeg ah ku saxiixaan heshiiskan inay galaan ama isbahaysigan. Bahrain oo ku dhow Israa'iil ma u badna baa la leeyahay isbahaysigan ay ku biirto halka dowladda Qatar ay xulashada hore ay leedahay Turkiga ay tahay oo la sii go'aamiyay meesha ay aadi doonto. Imaaraadka oo galaaf xoogan kala dhaxeeya Sacuudigana barcas ayaa dul saaran oo waxa muuqanaysa inaysan aadi karin. ra-iisul wasaaraha dalka Qatar Sheikh Hamid bin Jassim hore bay leeyihiin waxa uu leeyahay baahi degdeg ah ayaa loo qabay arrintan in la sameeyo oo muhiim ay ahayd marka si gaar loo eego gobolkan in uu isbahaysi ballaaran oo wadamada muslimiinta helo. waaya aan ku weydiiyo isbahaysigan oo xilli xasaasi ah ku soo aadaya wuxuu soo kordhin karaa ma ka badbaadin karaa wadamadan awoodda sii fidaysa ee reer galbeedka iyo waliba damaca Israa'iil loo wakiishay ujeedadoodu ay tahay gobolka bariga dhexe inay ku saameeyaan. dhinaca Iiraan ayaan eegayaa wiilkii uu dhalay boqorkii hore ee wadankaasi Mohammad Reza Pahlavi ayaa ku tilmaamaya in gacanka Khamenei uu hogaamiyay Iiraan 50 sanadood ka talinaya wadankaasi inay jabi doonaan. waxa uu leeyahay aniga ayaa wadanka ku laabanaya boqortooyada ayaa 50 sano kadib aynu ku celinaynaa gudaha dowladda Iiraan. laakiin saddex qodob ayuu keenay oo aad iyo aad ashqaraar u leh oo warbaahinta adduunkuna ay falanqeynayaan. wakaaladda wararka ee Agence France Presse AFP waxay leedahay jamhuuriyadda islaamiga way dhacaysaa buu yidhi. su-aasha waa goorma yaan la oran haddii ay dhacdo maxaa dhici doona aynu ka waranno. waxyaabaha uu bannaanka keenay waxaa ka mid ah haddii la doorto in uu isaga wadankaasi taladiisa la wareegi doono, in uu heshiiska Ibraahimiyada uu ku beeri doono
iyo weliba inuu Israa'iil aqoonsan doono. waxa uu sidoo kale yidhi si nabadi ku jirta ayaan kula shaqayn doonaa dowladaha carabta halka arrinta nuclearka ee caalamku uu ka walaacsan yahay aan gebi ahaanba meesha ka saari doono oo aan keeni doono dowlad reer galbeedku taabic u ah oo iyada raacsan sidaa daraaddeedna wax walba ay halkaasi ku ekaan doonaan. ninkan waxaa lagu soo warramayaa sirdoonka Maraykanku inay la kulmeen oo ay suuragal tahaba beddelka dowladda hadda taagan in isaga loo diyaarinayo. markii talada waddanka laga tuuray boqortooyadii uu ka tirsanaa ayaa waxa uu cararay waddanka la yidhaahdo Maraykanka halkaasina muddo dheer ayuu ku noolaa. isla wararka Iiraan ayaan ku guda jiray ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa Donald Trump ku qancinaya amaba u soo bandhigay inaan la qaadin tallaabo military oo ka dhana dowladda Iiraan ee Tehran hoosna loo dhigay dibadbaxyada muddada dheer gelgelayay meelo ay ka mid tahay Tehran iyo magaalooyinka kale. ujeedada waxa uu ku tilmaamay dhiigbax badan oo iman kara iyo dagaal ballaaran oo lala gala Iiraan in uu saameyn ku yeelan doono jiritaanka Israa'iil. Iiraan si mintidnimo leh ayaa laga baqayaa inay dagaalka u gasho haddii si ba'an loo soo weeraro. maalmihii ugu dambeysana arrimahaasi waa ay taagnaayeen. waxaa la leeyahay Iiraan haddii weerar lagu qaado ujeedadeedu waxay tahay inay meesha ka saarto jiritaanka Israa'iil. sidaa daraaddeed waxaa la isticmaalayaa janaalo diblomaasiyadeed oo kala duwan waxaana ugu horeeya dowladda Ruushka. afhayeenka aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo waddanka Ruushka ninka la yidhaahdo Dmitry Peskov waxa uu leeyahay xaaladda gobolka aad bay u kacsan tahay. madaxweynaha Ruushka ee Putinna waxa uu sii wadaa dadaalada uu ugu jiro in xiisadda la dejiyo. war-saxaafadeed Kremlinka ka soo baxay waa aqalka looga taliyo waddanka Ruushka ee waxaa lagu yidhi Putin waxa uu diyaar u yahay inuu wada hadallada ay dhexdhexaadinta sii wado isla markaana uu soo jeediyay in la xoojiyo tallaabooyinka siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed in la xaqiijiyo nabadda iyo xasiloonida gobolka ayuu arrintaa ku tilmaamay. wadahadal ayaa dhexmaray baa la leeyahay madaxweynaha Ruushka Putin iyo sidoo kale Mas'uud Pezeshkian oo ah ninka hogaamiya waddanka la yiraahdo Iiraan. waxay ka wada hadleen in tallaabooyinka Tehran ay qaadayso aad loo hubiyo in la soo celiyo deganaanshiyaha gudaha waddanka Iiraan taasoo ka dhigan dowladda Iiraan in janaalo diblomaasiyadeed oo cajiib ah ay bilowday inay isticmaasho si meesha loo xalliyo. dhinacyada geopoliticska marka laga eego ama juqraafi siyaasadeedka waxay leeyihiin Ruushka oo horey uga baxay baa la yidhi doonistii inuu dhexdhexaadiyo dagaalkii koobnaa ee 12 maalmood dhexmaray Iiraan iyo Israa'iil bishii Juun ayaa dhinaca kale waxa uu wajahay baa la yidhi kacdoon ballaaran cambaarayn caalami ah iyo in uu saaran nafeed dhaceen xilli uu ka hortagi kara arrintan. waxay sidoo kale madaxweynaha Maraykanka Trump dhowr jeer ku hanjabay in uu faragelin military ka samayn doono gudaha waddanka Iiraan. hase ahaatee dowladaha Sacuudi Arabiya Qatar iyo dalka Cumaan ayaa isticmaalay tallaabooyin diblomaasiyadeed oo Maraykanka lagu cadaadinayo inaanu tallaabooyinkaasi qaadin. waxaana laga hortagay baa la yidhi weerar sababi karay falcelin halis ah oo gobolka bariga dhexe ka dhaca. marka dowladahan saddexda ah waxay muujinayaan in guud ahaanba meesha laga saaro tallaabooyin military. Iiraan marka waxay helaysaa wajiyo kala duwan oo ay kaga badbaado tallaabooyin culus oo dagaal in ay dhexda u gasho si meesha looga baxo. marka la fiiriyo wararka soo baxaya waxay tilmaamayaan in mudaharaadyadii meesha ay ka baxeen in muqaabaraad kala duwan ay arrintan ka shaqeynayaan sidii xal loo helo. hay-adda Mossad ayaa ka mid ah dhinacyada tallaabooyinkan qaadi doona. haddaba haddii dowladda Iiraan ay ka badbaado inay dagaalkaasi dhexda u gasho suuragal ma tahay waa sida dadka qaar leeyihiin in nidaamkii Khamenei uu sii jiro balse isbedel ayaa laga filayaa dowladda Iiraan. khiyaartii nala socota tibintan intaas ayaan ku hakinaya waan filayaa inaad si weyn gobolka bariga dhexe xilligan uga warhaysaan. aad baad u mahadsantihiin.